Assalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada channelkayga Maida Kartoon. Fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe saar, haddaa hore noola joogtayna barnaamijka like saar, share. Bari hore waxaa jiri jiray 3 saaxiibo oo ku nool duurka dhexdiisa, waxayna kala ahaayeen Didiin, Tuka iyo Jiir. Waxay ahaayeen saaxiibo aad isku jecel oo na iscaawiya. Maalin maalmaha ka mid ah iyagoo meel iska fadhiya ayaa waxaa u timid Sagaaro. Sagaaro meeshaan ma ku cusub tahay, weligay ma kugu arkin duurkaane? Haa, aniga halkan waan ku cusbay, waxaan ku noolaa duurka dhinaciisa kale, balse wax saaxiib ah kuma haysanin, waayo xayawaanadii kale way diideen inay la saaxiibaan. Sidaas darteed ayaan halkan u soo aaday, waxaana raadinayaa saaxiib. Kaligaa miyaa tahay oo hadda halkan waxaad u timid saaxiib miyaa? Kadibna Didiinkii iyo Jiirkii iyo Tukihii way isfiiriyeen wayna qosleen. Maadaama markii hore aan ahayn 3 saaxiib, laakiin hadda waxaan noqonaynaa 4 saaxiib. Kadibna waxay noqdeen saaxiibo. Maalintii xigtay kulligood way kala tageen si ay cunto u raadsadaan, laakiin galabkii meeshii ayay ku soo wada noqdeen. Maalmo badan kadib waxay xaaladda sidaas ahaataba oo galab walba ee meeshooda ku soo noqdaanba, maalintii dambe Sagaaradii dib ma ay soo noqonin. Aad ayay uga walwaleen maqnaashaha Sagaarada. Jiirkii ayaa wuxuu dhahay weligeed sidaan may u soo daahin. Tukihii wuxuu yiri xilligan waxaa loo baahnaa inay timaado. Didiinkii wuxuu yiri ina keena aan soo raadine. Tukihii wuxuu yiri maya iska jooga, aniga ayaa soo raadinayo, waayo aniga waxaan awoodaa inaan meel dheer wax ka arko. Kadibna Tukihii wuu duulay si uu u soo raadiyo. Tukihii markuu cabaar sii duulay ayuu wuxuu maqlay cod. Markaas ayuu hoos fiiriyay wuxuuna arkay Sagaaradii oo dabin ku xiran. Markuu arkay saaxiibtiisa oo xaaladaas ku jirta ayuu hoos u soo degay. Markaas ayay Sagaaradii tiri saaxiib qaali iyo caawi. Markaas ayuu yiri hawlwalin, sidaan kugu caawin lahaa ayaan ka fikirayay. Waqti badan asagoo isaga sii luminin ayuu duulay, wuxuuna u tagay Didiinkii iyo Jiirkii oo meeshii ku sugayaan. Wuxuuna u sheegay inuu soo arkay Sagaaradii oo dabin ku xiran. Didiinkii ayaa yiri maxaad ku hadlaysaa oo dabinka yaa meesha dhigtay? Tukihii wuxuu yiri nin ugaarsada ayaa dabinka meesha dhigtay. Ee soo bax Jiirow i raac, adiga ayaa ilka fiican leh, aad ilkahaaga ku jirtid dabinkaasi. Isla markiiba ay meesha tageen Jiirkii wuxuu bilaabay inuu Sagaaradii dabinka ka jaro. Waxaa imaaday Didiinkii wuxuuna ku yiri Sagaaro ma fiican tahay, xaalkaaga ka waraya dabinka kugu xiray. Isla markiiba waxaa imaaday ninkii ugaarsatada ahaa oo dabinka meesha dhigtay. Ninkii ugaarsadaha markuu arkay Sagaaradii oo dabinka laga bixiyay ayuu yaabay. Jiirkii ayaa wuxuu yiri hayaay waa ninkii ugaarsatada ahaa na cararsiya. Tukihii wuu duulay, Jiirkiina wuxuu dhex galay god, Sagaaradiina way carartay. Laakiin Didiinkii miskiinka ah oo carari karin ayuu ninkii qabsaday, wuxuuna ku rutay juwaan. Waxyar kadib Sagaaradii iyo Jiirkii iyo Tukihii ayaa meel isku yimid. Aad ayayna uga xumaadeen saaxiibkood oo la qabsaday. Waan ka xumahay saaxiibkeen asagoo isoo badbaadinaya ayaa la qabsaday. Tukihii ayaa yiri aniga ayaa ahaayay fikrad fiican oo aan ku soo badbaadina saaxiibkeena. Jiirkii ayaa yiri sidee? Tukihii wuxuu yiri ugaarsadaha waa 1 qof, annagana waxaan nahay 3. Saacadaana muusa gaarin webiga, saaxiibkeen waan ka badbaadin karnaa. Isla markiiba Sagaaradii waxay iska dhigtay wax dhintay. Tukihiina wuxuu iska dhigay inuu cunaayo. Jiirkiina wuxuu ku sugayay geed gadaashiisa. Waxyar kadib waxaa meesha soo maray ugaarsadihii, wuxuuna arkay Sagaaradii oo meesha taalo. Markaas ayuu aad u farxay, wuxuu dhahay waa inaan hadda qabsadaa. Juwaankii ayuu meesha iska dhigay, kadibna wuxuu aaday Sagaaradii. Jiirkiina juwaankii ayuu u daba maray, wuxuuna bilaabay inuu ilkihiisa ku jaro juwaanka si uu saaxiibkiisa u badbaadiyo. Ninkii markuu u dhawaaday Sagaaradii, Tukihii wuu duulay, Sagaaradiina way carartay. Markuu soo laabtay ugaarsadihii, wuxuu arkay juwaankii oo maran iyo Didiinkii oo baxsaday.
aad ayuu u xanaaqay ugaarsadihii. Asxaabay afartii saaxiibna dib ayay u midoobeen ayaga oo faraxsan. Sheekada gunteedana waxay tahay midnimadu waa xoog. Intaas ayay ku dhammaatay sheekada.